لأن not aqoonsiga Somaliland not religious driven maaha waa mid laakiinse dana siyaasadeed taa markaynu eegno muxuu keenayaa Somaliland aqoonsiga Somaliland wuxuu keenayaa kow shacabku muxuu keenayaa horta shacabku wuxuu keenayaa waxa weeye dadka waxa u furmaya aqoonsiga Somaliland guud ahaan markay la aqoonsado isu socodkii oo dhan baa furmaya waxa furmaya dhalinyarada wadanka joogtay buux dhaafisay inay helaan waxbarasho caalami ah inay helaan wuxuu keenayaa shaqo abuur wuxuu keenayaa ganacsiyo markaynu xagga dawladda eegnaa ama dalka guud ahaan markaynu eegnana waxaynu access u yeelanaynaa ama aynu helaynaa international financial institutions sida IMF-ka, World Bank-ka, African Development Bank-ka investors-kaas oo dhan baynu helaynaa yani access u yeelanaynaa direct aynu la xiriirina imika hadda gacan dhaxaynu marnaa waxaynu helaynaa foreign investment maalgashi caalami aynu helaynaa waxaynu helaynaa oo aynu wadamada ka wada shaqeynaynaa maadaama aynu meel strategic ah Somaliland ku taalo oo baawilmandabkii umarankii baawilmandabku halkan meeshan yahay waxaynu helaynaa marka maritime security corporations aan wadamada la yeelano oo kala shaqeyno amniga arrimaha badda oo kale horumar baa imanaya tusaale waxa soo qaadanaya wasaaradda oo kale anigu waxaan ahay wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta marka la yiraahdo runtii wadankeenu wuxuu leeyahay kheyraad yihiin macdan aan taabida oo wali aan la taabanin ala sheegayay wali maynaan gaarin stage large scale mining aynu sameeyno maynaan gaarin ama macdanta si xawliyad si xooga loo guro maynaan gaarin taas maxay keenaysaa marka kheyraadkeenu inagu filan haddii wadanka oo dhan la yiraahdo gobolka awdal baa ku filaanay macdanta gobolka awdal haddii la soo saaro haddii la iska dayo gobolka saraag baa wadanka oo dhan ku filaanay waxaynu leenahay strategic minerals waxaynu leenahay rare earth minerals ku wada leedahay waxa weeye u baahan investment caalami ah bankeeni baa legitimate noqonaya oo waxa weeye guarantee gareynaya investorkii wadanka iimanaya waxyaabo waaweyn ay ku weydiinayaan qofka investorkii ama shirkadu waxa kamid ah sidoo guarantee gareynaysa damaanad qaad ma helaynaa haddaan lacag intaan la gelino si fudud baynu ku helaynaa imika si fudud baynu ku helaynaa dadku shaqooyin bay helayaan wadanka lacag baa soo galaysa kheyraadkeena inuu si mas'uuliyad ku jirto uga faa'iideysanayna wadankeena waxa kale uu leeyahay petrol wasaaradda waxa kamid ah qaybta petrolka min ka soo bilow sayla ilaa iyo sanaag halka u dambaysa waxa ku jira hydrocarbon oil and gas baa halka ka waxaan ugu filanayaa ceelal la soo saaro hadda istadiyadii way dhamaadeen meelaha qaarkood fulin bay u baahan yihiin taageero fulintuna waxay u baahan tahay investment marka waxa weeye wadanku uu kala nasanay oo la kala nasanayaa oo khilaafyadan aynu arkaynaa dadka shaqo la'aan bay isku keenaysa waxa aynu arkaynaa adduunyada dadku isku mashquulsan innaga waxyaabaha isku keen mashquuliyay waxa weeye damkhayadii baa boqolaal qof joogaan oo la camalay marka khilaafyadu halkaas ka imanayaan faa'iidooyinka kulli inta ay ka badan way keenaysaa